daawadaha qiimiga badan oo ku soo dhawow IM252 maadaama aan inteena badan WhatsApp-ka u adeegsano si joogto ah waxaan muuqaalkan kugu soo gudbinayaa farsamooyin 5 ah oo filayo inay wax kaaga tari doonaan hab adeegsigaaga WhatsApp-ka waxaan xoog saari doonaa farsamooyin aad u adeegsan karto dadka muhiimka ku ah ee WhatsApp kula sheekaysato inta badan iPhone iyo Android si isku mid ayaan kugu tusin doonaa bal iga tirso farsamooyinka 5 ah laga yaabay in qaarkood ama gabigoodba ay ku anfacaan haddii aad ugu yaraan mid qodobada kamid ka heshana fadlan la sii wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan iyagana iga tirso 5 qodob haddii aad leedahay saaxiib dadka kale kaaga duwan inta badanna sheekaysataan waxaad wada sheekaysigiisa ka dhigan kartaa in uu mar walba ugu sareeyo oo uusan dadka kale fariimahooda kaaga darsoomin kaliya qofkaas muhiimka ku ah magaciisa fartaada ku hay kadibna calaamadan sare ee binka ah xulo sidaad u jeedo qofkaas wada sheekaysigiisa ayaa ugu sare maraya si aad markasta dhaqsi u hesho wada sheekaysigaas muhiimka ku ah si aad uga qaadana fartaada ku hay oo calaamadii hore ee binka taabo mar kale iPhone-kana kaliya dhanka midig fartaada ugu jiid qofkaas WhatsApp-kiisa kadibna ka xulo bin si aad uga bixisana isla midigta u jiid unbin ka xulo ma jira qof aad markasta jeceshahay in aad fariin u dirto ama aad aqrido fariimihiisa waxaad wada sheekaysigiisa saaran kartaa shaashada hore ee telefoonkaaga oo marka aad taabataba toos ayaad ula sheekaysan kartaa si aad u samaysana farta ku hay qofkaas magaciisa kadibna taabo 3 dhibcood kana xulo add chat shortcut sidaad u jeedo sawirka qofkaas WhatsApp-ka u saarnaa iyo magaciisa ayaa shaashada hore kuu soo koraya si aad qofkaas ula sheekaysatana waa in aad kaliya taabato sawirkiisa yarka ah ee shaashada soo koray horeyna uga dirto fariinta aad u sido waad ka tiri kartaa shaashada hore adigoo fartaada ku haynaya kuna jiidaya remove ogow farsamadan iPhone-nada ma lahan Android-ka ayuu u gooni yahay hal fariin ayaad hal mar u diri kartaa dad badan iyadoo qof kasta uu isu malaynayo in si gaar ah fariintaas isaga loogu soo diray si aad u dirto fariin noocaas ah 3 dhibic ee kore taabo kana xulo new broadcast dooro saaxiibada aad u diri doonayso ogowna ilaa iyo 256 qof ayaa lagu ogol yahay kadibna saxda hoose taabo sidaana ugu dir fariin aad waqti badan ku bixin lahayd haddii aad mid ugu diri lahayd dadkaas iPhone-kana qaybta sare ka xulo broadcast lists kadibna xulo new list deetana xulo saaxiibada aad u diri doonayso create taabo una dir fariintaada dadka aad xulatay oo idil hal mar haddii uu telefoonkaagu kaa fog yahay laguna soo diro fariin WhatsApp ah waad dareemi kartaa sax waayo codka fariimaha WhatsApp-ka ayaad maqlaysaa balse ma ogaan kartid qofka fariinta kuugu soo diray ama kaa soo wacay WhatsApp-ka si aad u ogaato in qof muhiim kuu ah uu fariin WhatsApp-ka kuu soo diray ama kaaga soo wacay cod gaar u ah qofkaas ayaad saaran kartaa si aad u saaratana wada sheekaysigaas qofkaas soo dhexgal qaybta sare halka uu magaciisa ka muuqdana taabo xulo custom notifications sax saar meesha ay ku qoran tahay use custom notifications kadibna notification tone taabo oo xulo cod gaar u ah qofkaas oo aad fariimihiisa ku aqoonsato gariir gaar u ah ayaad dooran kartaa sidoo kale adigoo taabanaya vibrate halka hoose ee ringtone ah wicitaankiisa u xulo cod gaar u ah si uu codkiisaas kuugu soo dhaco marka uu qofkaas kaa soo waco WhatsApp-ka si aad dadka kale uga mid dhigtana kaliya meesha ah use custom notifications ee aad saxda saartay saxda ka qaad dadka kale ayuu la mid yahay iPhone-kana magaca qofka ee qaybta sare taabo custom tone taabo cod gaar u ahna xulo waa intaa un fariimaha muhiimka ku ah oo idil hal meel ayaad ku wada kaydsan kartaa xitaa haddii ay ka kala yimaadeen dad kala duwan kaliya imow fariinta aad u aragto in ay muhiim kuu tahay ama aad doonayso in aad dib u soo xusuusato fartaada ku hay fariintaas kadibna qaybta sare taabo calaamadda xidigta ah si aad fariimaha noocaasa dib ugu heshana 3 dhibic taabo kana xulo starred messages waa kuwa fariimaha aad xidigta soo saaratay oo idil
haddii fariimahaas mid ka mid aad taabatana wada sheekaysigii ay fariintaas ku jirtay ayuu dib kuugu celinayaa. Si aad fariintaas uga saarto fariimaha muhiimka kuu ah, keliya fartaada ku hay fariinta, sidii hore oo kale mar kale xidigta taabo waa uu ka baxayaa. iPhone-kana fariinta farta ku hay, calaamadda xidigtana taabo. Si aad fariimahaas oo kale u heshana, qaybta hoose marka aad WhatsApp-ka soo gasho ka xulo settings, kadibna starred messages. Si aad fariimahaas uga saartana sidii hore oo kale, fartaada ku hay fariinta, calaamadda xidigtana taabo mar kale. waxay la tahay inaad 5 qodob iga tirsatay. haddii aad mid un ka faa'iiday, fadlan ha ilaawin inaad muuqaalkan la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aadan ka mid ahayn asxaabta im252, fadlan ku soo biir adigoo like saaraya bogga im252 ee Facebookga. sidoo kale kanaalka im252 ee YouTube-ka subscribe garayso adigoo gambaleelkana taabanaya si aadan u seegin muuqaalada cusub ee im252. waa inoo muuqaalka xiga alla idankii, ii sii faraxsano.